ciidanka ilaalada cashuuraha ee ka howlgala degmo ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley oo maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa soo qabashada qaadka sharci darrada ee ka soo tallaabay xuduudka u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya Wajaale ayaa gacanta ku soo dhigay qaad fara badan oo la soo gelinayay gudaha degmada Tog Wajaale qaadkan oo lagu soo dhaxqariyay koodhadh iyo khudaarta aynu mafacaasano isla markaasina ciidanka ilaalada cashuuraha iyagu markastaba dagaal adag ku haya qaadka ka soo tallaabay xuduudka ay soo qabteen haddaba ciidamada ilaalada cashuuraha ayaa iyagu markastaba heegan buuxa ugu jira sidii ay u dabargoyn lahaayeen qaadka sharci darrada ee ka soo tallaabaya isla markaasina ay u fulin lahaayeen amaamirtii ka soo baxday guddida heer qaran ee uu gudoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland daawadayaal sida halkan idinka muuqata waa qaadka ay soo qabteen ciidanka ilaalada cashuuraha ee ka howlgala gudaha degmada Tog Wajaale isla markaasina uu hogaaminayo taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha ee degmada Tog Wajaale Baashi خضر عبد الله تلفزيون عالمي بدعس 24 تي في دقم قناع سيادك وجه على قبل كقبلي